Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaam dhammaan asxaabta nagu xiran. Maanta waxaan sameysanaynaa malaay aad u fudud aadna u macaan badan. Baaquliga waxaan kusoo shubtay gobol jumbo ah iyo waxaan kusoo daray hal qaado xawaaji iyo waxaan kusoo darsaday hal qaado oo barbarooniga shiidan caagadaha ah. Maasha Allah aad u macaan badan yahay malaaygan, waadna ka heli doontaa. Kadib waxaan kusoo daray zacfaraan ama food color. Kadibna waxaan kusoo daray jumbaha caaga ku imaado. Maasha Allah. Kadibna waxaan kusoo daray qaadada afkeeda hore oo cusbo ah. Kadibna waxaan kusoo daray kabsar caleen iyo toon la isku soo shiiday. Haddana waxaan kusoo darsanayaa hal qaado buuxdo oo vanilla extra oo caaga ku jirto. Kadibna waxaan kusoo darsanaynaa liintan way diyaarsan tahay, caagadaha ay ku jirtaa. Kadib waxaan kusoo darayaa 2 xabo ukun. Hal xabo ayaan kusoo daray, haddana midda labaad ayaan kusoo darsanayaa. Kadibna si fiican ayaad iskugu qasaysaa, waadna isdhexgelinaysaa. Maasha Allah waa wax aad u fudud aadna u macaan badan, waadna ka heli haddaad tijaabisid hal mar leh. Si fiican ayaad isku dhexgelinaysaa ilaa uu iska dhex galo. Biyo ayaan kusoo kordaray. Biyaha aan si fiican ugu qasayaa. Biyahan si tartiib ayaan ugu shubayaa. Hal mar aan ku wada shubo biyo ayuu ka noqonayaa. Kadib hal koob bur ah ayaan kusoo darsaday. Burka ayaan si fiican ugu qasayaa, waan isdhexgelinayaa. Burkan kuuskuuska inaad ka bixisid waaye. Kadib geedka doolshada ayaan kusoo garaacay, kuuskuuska waan kusoo wada bixiyay. Maasha Allah suu nadiif u yahay waad u jeedaan. Haddana malaayga ayaan soo gelgelinayaa. Malaayga ayaan si fiican u soo marinayaa. Waxaa laga rabaa malaayga labada dhinac inaad u gadisid si fiican uu ugu dhex galo. Kadib saliid ayaan soo saartay. Saliid way noo soo karkartay. Malaaygeena ayaan kusoo ridanaynaa. Maasha Allah malaayga si qurux badan ayuu kusoo baxay. Fadlan channelka dad ku cusub tahay nagu soo biir, subscribe noo saar. Haddaad hore noola joogtaan like iyo share iyo comment hana la dhaafin. Waadna mahadsantahay.